Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan ku baranayno reinforced concrete beams. Waxaan isweydiinaynaa waa maxay reinforced concrete beam? Reinforced concrete waa materialka uu beamkeeni ka samaysan yahay. Waa shub yacni la geliyey bir, okay? Marka ujeedka ugu weyn anaga aan leenahay waxay tahay inaan barano beam. So marka wuxuu ku leeyahay beamka waa horizontal structural element, okay? Waa xubin jiifa oo ka mid ah xubnaha structure-keena uu ku taagan yahay ama qalfoofta guriga uu ku taagan yahay mid ka mid ah waa. Okay? Wuxuuna qaadaa uu ku yiri marka culayska perpendicular wuxuu u qaadaa culayska perpendicular to the longitudinal direction. Okay? Yacni dhanka perpendicular ku ah dhinaciisa dheer. Okay? Si aan isku fahanno marka waxaan tegaynaa slide-ka kan xiga. Okay? Waxaan hadda soo sheegnay hore waxaan usoo baranay slab. Okay? oo ah sagxadda marka ugu horreeya culayska ugu soo dhaco. Shayga support gareynaya ayaa loo yaqaanaa beam. Waa ka beam sidoo kale halkan uu ku jiraa. Okay? dhinacaas wuu ku jiraa. Waa horizontal member waa xubin ka mid ah xubnaha gurigeena uu ku taagan yahay oo laf dhabarta u ah kaasoo horizontal ah sidii slabkii oo kale wuu jiifaa. Okay? wuxuuna qaadaa lagu yiri culayska jiha perpendicular ka ah ku ah longitudinal direction-kiisa. Okay? beamka waxaan naqaanaa dhinacaas inuu width ku leeyahay. Okay? sidoo kale dhinacana inuu depth-kiisa uu yahay. Okay? so dhinacaana waxaa la yiraahdaa waa length-kiisa oo terminology ahaan anaga u naqaano span. So marka loadka wuxuu u qaadaa direction perpendicular ku ah. So marka hadda wuxuu ku yahay kan loadkeena ayuu wuxuu ku yahay perpendicular. Okay? waxaan loadiska oo dhan waxay perpendicular ku yihiin length-ka ama dhinaca dheer ee beamkeena ayay perpendicular ku yahay. So marka waxaan rajeynayaa in aan isla fahanay macnahaas. Okay? so marka waxaa lagu yiri marka beamka waxaa laga samayn karaa materials kala duwan sida kan haddaba uu u yahay reinforced concrete. Reinforced concrete maxaa waa shub bir la geliyo waa kan. Okay? wax kaloo noqon karaa maxaa ka mid ah marka steel oo noqon karaa. Okay? beam steel ah ayaa jira oo bir ka samaysan. Okay? waxaa jiri kara beam oo wood oo alwaax ka samaysan. waxaa jiri kara mid shub kaligiis ka samaysan ayaa jiri karo. mid shub iyo bir sidoo kan oo kale RCC la yiraaha kala jiri kara. Okay? waxaa kaloo jiri kara composite material. Composite waxa hore usoo baranay wax la isku daro waa yacni maxaa la steel iyo wood oo kale ayaa la isticmaalay. Okay? waa la isla isticmaalay composite waa beam oo labadaas ka samaysan ayaa jiri karo. waxaa jiri karo beam steel iyo concrete ka samaysan. Okay? marka waxaasoo dhan waa dhici karaan. Composite maxaa la marka laba material iyo wax ka badan oo la isku keenay la composite. marka muxuu ku yiri laakiin inta ugu badan materialka loo isticmaalo beamka loo isticmaalo waa RCC. maxaa laga soo gaabiyey reinforced cement concrete. Okay? yacni waa shub bir la geliyo waa. Okay? beamiska shaqada ay noo qabtaan ama sababta u isticmaalayna waxay tahay inaan ku support gareyno weight of floors. Okay? floor hore usoo baranay. floor waxaa waaye waa sagxadda aan ku dul taagannahay ama aan wax soo dul saareen culayska shayga ugu horreeya ku dhaco ama elementiga ugu horreeya culayska uu ku dhaco waa floor. so marka hore usoo baranay floorka guriga saan oo kale waa tusaale ahaan area-diisa waa la jarjaraa marka qolala lagu sameeyo. halkan waa qol la leeyahay halkaas kale waa qol. Okay? meeshaan waa yacni waa qol kale. Okay? halkaas waa fadhi. marka kan waa floor kan waa floor kan waa floor. so marka flooriskaas culayskooda waxa celinaya waa beam. beamiska marka geesaha laga gelinaa si uu support gareeyo. meeshaan oo kale beamaa la gelinaa halkaan oo kale beamaa la gelinaa halkaan oo kale beamaa la gelinaa and so on. Okay? so marka beamkaas ayaa celin doona culayska flooradan ay leeyihiin. sidoo kale wuxuu celin doonaa weight-ka oo ceiling-ka iyo sidoo kale roof-ka. Okay? labada era marka si aan kuugu faa'iideeyo meelo badan aa ku arkaysaa. marka maxay ku kala duwan yihiin waxa waaye inuu shaki badan kaaga jiro waxa ay yihiin. mathalan hadda waxaa haysanaa meeshaan qol ayaa meeshaan ku haysanaa waa isfahansiinaynaa waa saas uma kala foga laakiin difference yar u dhaxeeya. Okay? meeshaan waxaa kasoo qaadaaba qol inay tahay. so marka qolkan marka la rabo roof in la saaro maxaa la sameynaa ama saqaf marka la rabo in la saaro saan oo kale loo saaraa. Okay? Okay? saas oo kale loo saaraa. kan maxaa waaye marka waa roof. waxaa la marka roof waxaa la lahaa daboolka kore ee banaanka ah. Okay? kan gudaha oo markaas daboolka gudaha ku jira oo qolka markaa dhex taagan tahay halkaan oo kale markaa dhex taagan tahay midka kuu muuqanayo ayaa waxaa la yiraahdaa halkaan oo kale markaa dhex taagan tahay midka kuu muuqanayo oo ama safiito noqonayo ama ma aragtay shub caadi iska noqonayo wixii la rabo ha lagu qurxiyo. midkaan gudaha ku jiro waxaa la yiraahdaa ceiling. Okay? so marka kanna waa inside. Okay? kaasna waa outside. Okay? intaas ku kala fahan marka laakiin labaduba inay dabool yihiin u fahan. Okay? kana waa out. Okay? so marka roofka iyo ceiling-ka culaysyadooda
ayuu sidoo kale support gareeyaa ama uu qaadaa. Okay, waxaanu culeyskaas u gudbinaa vertical load bearing element of the structure. yacni waxaa jiro derbiyo culeyska qaada ama waxaa jiri karo column culeyska qaadaya. adii markaas structurekaada verticalka ah oo beamka ah ku support gareynayso ayuu u gudbin doonaa culeyska. Okay, shaqada kale oo intaas usii dheer maxaa waaye waxaa loo isticmaalaa inuu opposing ku sameeyo, yacni inuu iska caabiyo, inuu celiyo. Okay, bending moment markii shaygan culeys la saaro, beamkaadoo kale marka culeys la saaro oo yacni culeys loo isticmaalo, wuxuu culeyskaas keeni doonaa in shayga uu ku sameeyo bending waxa la dhaho. bendingkaas waxaa la rabaa inuu iska difaaco. Okay, sidoo kale waxaa la rabaa shear inuu iska difaaco. shear waxaa marka in beamkii awood isdhaafa ay u imaado. Okay, inuu yacni beamkii uu isdhaafo, awood oo shearing ah macnaha inay imaado meeshii, oo kanna hoos u dhaqaajinaysa, kanna uu iska resist gareynayo. so marka labadaas direction oo kala duwan awoodda keenaysa, weliba wuxuu ku badan yahay meelaha supportiyada ayuu aad ugu badan yahay shearka. marka labadaas inuu iska caabiyo ama uu hor yimaado ayaa loo baahan yahay beamka. waa shaqa labaad uu noo qabto. waxaa lagu dhahay marka beam structure markaan joogno, waxaa lagu dhahay waxaa jirta noocyo kala duwan ee biraha aan u isticmaalno. Okay, beamka laakiin waxay ku xiran tahay lagu dhahay waxay ku xiran tahay type of building. Okay, nooca dhismaha dhisidii ku xiran tahay. Okay, iyo ujeedka beamkeena aan ka leenahay, labadaasay ku xiran tahay. laakiin wuxuu ku dhahay inta ugu badan beamiska aan isticmaalno marka aan u hadlayno general speaking. Okay, waxaa waaye waa main bar, waa birta ugu weyn meesha oo ugu muhiimsan waaye. birtan maxay qaadaa? culeyskay qaadaa, bir ciyaar ciyaara ma aha. sidoo kale culeyskana waa gudbisaa, element ayay culeys ka qaadaa, element kale ay u gudbisaa. for example, beam aan joognaa, beam birtan waxay ku jirtaa bottom. Okay, qaybta hoose ayay ku jirtaa. beamkan bottomka ku jiro waxa culeyska usii gudbinaa columnka. Okay, columnka haduu geenaa. maxaa kaloo jirta marka bir kale oo la dhahayo support bars. Okay, maxaa marka looga baahan yahay birtan? meesha sare ee beamkaada ayaa looga baahan yahay. yacni beamkaada markuu saan yahay oo kale sectionkiisa soo qaadanayna. Okay, beamka saan markuu yahay, birta main barka halkaan ay ku jirtaa. Okay, halkaas ayay ku jirtaa. midda oo support barsna waxay ku jirtaa meesha topka. Okay, ase marka muxuu ku yidhi birtan waxaa la isticmaalaa ama shaqada ay qabanayso waxay tahay inay isku haydo stirrubiska beamka uu leeyahay. stirrubiska waa kuwan, waa isla arkaynaa. stirrubiska marka waxaa la lahaa waa bir yacni celinaysa. Okay, oo isku haynaysa, saan oo kale ayay isku haynaysaa, lagu soo wareejaa. Okay, sidaas oo kale ayaa loogu soo wareejaa. Okay, sidaa darteed marka birtan waxaa la dhahaa stirrubs, birtaas ayaa la dhahaa. Okay, birtaas ku wareegsan ayaa la dhahaa. so marka wuxuu ku dhahay si stirrubiskan iskugu hayo, stirrubka macnaha ma iska jiraya, stirrubska wuxuu isku celiyo u baahan yahay. so marka birtan bisaa ku kaaftoomaa ma dhihi kartid. designka marka la joogo laba nooc oo beam aa jirto. beam marka la design gareynayo aan ka wadaa, marka la design gareynayo waxaa loo design gareyn karaa as single reinforced concrete, yacni dhinaca tension zonka ayaa bir looga baahan yahay keliya. Okay, waa markaas waa marka la dhahayo single reinforced. markii laakiin dhinaca kore iyo dhinaca hoose labadaba looga baahan yahana maxaa la dhahaa double reinforced concrete. so marka marmar waxaa jirto aad u baahnayn double, balse at the same time waxaa u baahan tahay inaad birtan meesha keento si stirrubiska yacni isugu haayaan. Okay, so marka in la fahmo oo rajeynaa. so marka birta stirrubiskana haddaaba sheegnaba waxaa waaye waxaa loo isticmaalaa ugu dhaha in shearka ay ka hortagto iyo shear stresseska. yacni hadda waxaan sheegnay beamkeena awoodahan isdhaafayo oo shearka oo la dhaho kale oo supportayaasha agtooda ku badan waxaa iska caawin karo waa stirrubiska. waa birtaas waxaa loogu talagalay ama shaqadeeda ay tahay in ay iska resist gareyso ama iska caabiso shear forceaha oo culeyskaada uu keeni doono. Okay, saaxiibayaal marka muuqaalkeena halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. insha allah lecturada soo socdo ayaa inoo balana.